السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay agaasimaha qof waliba mansabka uu ku fadhiyo ayuu ku sharfan yahay sidaas ayuuna ku salaaman yahay dadku aad ay u kala duwan yihiin haddii la yiraahdo mudane iyo marwo kaliya inay ku filnaynaa suuragal ah laakiin niyadan dhammaantiin idinkaga haynaa jagada aad ku fadhidaan iyo mas-uuliyadda iyo xilka aad haysid waxaan rabaa wax yar munaasabadda maanta la isugu yimid ee Marina Beach in badan oo idinka mid ahna waxa aan sheegi doono waxay u noqonayaan recap yaroo hore ay u ogaayeen dadna waxa laga yaabaa intay ogaayeen qayb ka mid inaan ka kala tago kuwana waxba hadday bilow u taho waxa laga yaabaa inay intii ay ogaayeen ka badan inay ogaadaan marka si walba oo loo dhigo xogtoo dhammaystiran iyadoo qoraal ah iyadoo presentation ah intuba mar waliba waxa laga heli karaa maamulka shirkadda goobta hadda aan joognana waxa weeye xarunta laga maamulo Marina Beach Estate oo ah magaaladan ama xaafadan sida la sawiranayo maanta hal guri iyo laba guri kamid ka dhisan laakiin la rajaynayo sida sawiradeeda iyo waxyaabaha qaarkood aad ku aragteen ama ku arki doontaanba waa halkii laga maamuli lahaa xaafadan qaybtan hadda aan joogno waxa deganaan doona maamulka waxa deganaan doona qaybta engineeringka iyo qaybahaas kala duwan xafiiska shirkadda maamulkeeda weyn ama HQ-ga waxa uu ku yaala magaalada gaar ahaan Xamarweyne Muqdisho Mall ayuu ku yaala waa meesha agaasimaha iyo teamka hawsha wada ay fadhiyaan lagana heli karo waxa la wixii xog dheeri ah oo looga baahdo Marina Beach maalin walba meel baa la soo joogaa 2010 ama 2010kii ayay ahayd markii fikirkan ay yagleeleen dad ganacsato ah oo istusay in magaaladu ay u baahan tahay in waqooyiga laga eego sida koonfurba ay u dheeraatay u baxday dhinacna ay uga darsantay halkaas iyo afgooye dhinacna ay dhinaca kale u sii aaday 2010kii markii howlahan la galayay waxay ahayd fikir oo ay u sawirnaayeen qof iyo labo iyo shan iyo lix qof oo keligood inay istuseen laakiin uma aynan muuqanin fursadaha noocaas oo kale ah in badan oo hadda sheerar ku leh ama muxuu ahaa ii sheeg already soo dalbaday shirkadda waaga uma aynan muuqan so 2010kii maanta waxaa laga joogaa 10 sano still waxa weeye waa history in the making waa taariikh socota oo wali active ah oo maalin walba wax lagu darayo weeye alxamdulillah markii la eego meeshii laga yimid iyo meesha la jooga maanta wax weyn ayaa qabsoomay laakiin marka la eego meesha loo socdo iyo meesha la joogo waxa weeye dhibic bad ku dhacday oo kale ayaa loo qaadan karaa vision kale leeyahay fikraddaas ganacsi quruxdeeda waxyaabaha aad ku saacidaya waxa kamid ahaa in Marina Beach haddii ay hagaagto ay noqonayso xaafadaha magaalada Muqdisho kamid ah oo haddii hadda la xisaabiyo kilometer 0 fiyaad laga soo bilaabo ilaa iridda aan ka soo galaynay hadda waxa u dhaxaysa 5 kilometer oo kaliya wadadu haba xumaato raf hayra ahaato laakiin iyadoo rafkaas ayay 5 kilometer tahay qorshaha marka waxa weeye waxaas rafkaas in inta laga baxo laami la saaro oo kilometer 0 iyo iyada 5 kilometer waa dareemi kartaa waqtiga lagu socon karo haddii freeway la helo you can imagine maqaan 4 daqiiqo 5 daqiiqo wax la mid ah in lagu yimaaday u badan tahay waana sababta marka iridda laga soo galay aad u aragteen Marina Beach Estate waxaad arkayseen K5N oo micnaheedu yahay 5 kilometer magaalada cabirkeeda meesha uu ka bilowdo dhanka waqooyi inay ka tahay waa laga yaabaa in la isweydiino la K5N maxaa laga wadaa marka for clarity saas ayaa loo bixiyay marka K5N in saas loo bixiyo magacaas ay halhaato guud ahaan marka la eego dhulka ay ku fadhido sida hadda marka aan baxno aan u arki doonaba waa ilaa 2468 boos dhul aad iyo aad u weyn oo dadkii architectska dejinayay ay ku sheegeen baaxadda uu ku fadhiyo marka la eego xaafadda Xamarweyne iyo xaafadda Shangaani oo la isku daray way marka ay sahlanaan karto way wax in la sawirto
laakiin meesha hadda aan taagannahay iyo bacaadka iyo god iyo doon marka bannaanka loo baxo quite impossible waa in la sawirto laakiin architecturally waxay noo sheegeen baaxadda uu ku fadhiyo inuu yahay 104 acre haddii la dhigo acre ahaan loo xisaabiyo iyagaasaa si fiican nooga yaqiinay markii ay xisaabiyeen xaafadda Shangaani iyo Xamarweyne oo la isku daray ayay noo sheegeen si ka duwan xaafadihii magaalada Muqdisho ay u dhismayeen waagii dawladda ama qaarkoodba hadda loo dhisayo xaafadan waxa ay ku saleysnaan doontaa systemka state-ka la dhaho oo qorshuhu uu yahay hadduu alla yiraahdo 120 ilaa 150 guri waliba in xayndaab inta loo sameeyo si gaar ah gate-kooda iyo security-gooda iyo services-kooda gaarka ay yeeshaan meeshaas marka waxaa imaanaysa xaafad modern ah ka mid ah xaafad weyn oo Marina Beach la dhaho laakiin ecosystem yar oo 120 guri ah team yar oo la maamuli karo ama is og inay tahay marka saas loo dhigana waxaa laga yaabaa in la is yiraahdo dadkan siday u socdaan waa elitist dad elite bas ah raba inay soo degaan oo hanti laho waaweynka bas ah isugu yeeraya no qayb waxay leedahay xaafadda ay degi doonaan diplomatic zone loo bixiyay oo gaar ah oo dadka mas'uuliyiinta ay degi doonaan laakiin meel waliba iyada kamid ah waxay u furan tahay naqshad ahaan ay u diyaarsan tahay inay ka faa'iideystaan dadka caadiga ee Soomaaliyeed ee normal citizenska kumana xirno awoodiisa dhaqaalo inay tahay x iyo inay tahay y laakiin ilaahayba ummadda ma simino magaalada Muqdisho isku si looma wada degano dadka inta degi doonana sida ay noqon doonaan 120 guri ilaa 150 guri oo isku xiran inuu state-kaas qayb saas u kala go'naado magaalo ahaan marka intaan soo sheegnay waxa la isweydiin karaa imise qoys ayaa degi karta waa la xisaabiyay 3751 qoys ayaa degi kara marka la eego guryaha noocyadooda kala duwan kuwa gaagaaban iyo kuwa dhaadheer marka la isku daro marka xaafad aad iyo aad u weyn ayay noqon doontaa haddii uu alla yiraahdo already xaafaddu waxa ay heshay oo in dhawaalaba soo socday in ay la bahowdo oo garab istaago bangiga weyn ee caanka ah Dahabshiil Bank oo runtii investment bankerka saxda ah noqon doona howlo badanna ka qaban doona taasna waxay siinaysaa dadkii degi lahaa meesha iyo inaga oo reer Marina ah kalsooni ah meeshu inay potential leedahay waayo bangiga markuu howlahaas kala galayo waxaa ka horeeyay inuu due diligence badan sameeyay in badan maamulku uu la fariistay checks and balances badan sameeyay marka hadalkooda iyo sida iyagu laftigooda aragtidooda ay tahayna waxaana la wadaagi doona mas'uuliyiinta jooga waxaa lagu bilaabi doonaa hadda oo ilaahi idinkii marka ay xafladu dhamaato wixii ka dambeeya la gudagali doono ilaa 500 oo guri dhismahooda oo la rabo si degdeg ah in loo bilaabo waxyaabaha aadkaan ugu faraxsannahay waxaa ka mid ah iclaamintii yaryareyd ee la sameeyay tan iyo intii aan daah furnay coronavirus markii uu bilaabanayay agtiisa ay xogaa ka hor ilaa 138 booking inay hadda jirto oo ay dad bookinteen oo ay already allocated u yahay resourceskaas wixii laga rabay iyo waajibaadkii iyo shuruucdina ay soo mareen intaas waxaa sii dheer xaafadda wax alla wixii looga baahnaa ee public service ama police station ha ahaado ama dabdamis ha ahaado ama iskuulaad jaamacado gardens iyo in la sameeyo corniche yar oo la fadhiisto lagu raaxaysto intuba waxay ku jirtaa design-ka la rabo in xaafadda lagu dabaqo si haddii loo dhigo xaafad yar oo madax bannaan oo all in one isku ah laga dhex heli karo adeegyada noocyadooda kala duwan ayuu sawirku yahay maanta se waa bilow waxaana ilaahay mahadiisa ah inaad qayb ka tihiin marqaatina ka tihiin meeshii Marina Beach ay ka bilaabanaysay